waayadan dambe waxaa maqlayay niman qurba jooga oo is urursaday oo facebooka ka hadla oo ka dhawaajinayay wax leeda maakhir baanu samaynaynaa khaatum aan ku darsanaynaa runtii aniga maad bay ila muuqatay waana idiin sababaynayaa markaan idiin sababeeyo haddaan been sheegayo waxaad odhanaysaan intaad farta taagtaan guddoomiye been baad sheegtay khaatimada ay sheegayaan cali khaliif galaydh baanu ku ogeyn oo la wareegi jiray oo odhan jiray madaxweyneaan ka ahay aakhirkii ugu dambaysay isagoo la goostay oo hargeysa la galay baynu ogeyn oo yidhi somalilan baan kula heshiinayaa haddana xamar ku joogaa khaatimada ay markaa heshiiska la galeen ee ay leeyihiin waan la midoobaynaa waa khaatimada cali khaliif galaydh hargeysa la galay muddana uu ku tabliiqaynayay somalilan iyo sidii ula shaqayn lahaa urur kaloo ka horreeyey oo dadka deegaanadan gobolladan ka soo jeeda ay lahaayeen SSC baa jiray nin in adeerkeena oo la odhan jiray xagla toosiya ayaa isaguna la galay hargeysa wasiir caafimaad buu ka helay maakhirka la sheegayo waxay noqon doontaa urur noocaas oo kale lagu aasaaso oo beri lala gala hargeysa ama burco taa ogaada markaa haddaad doonaysaan maanta ayaad xor tihiin oo guddoomiyihii baarlamaanka oo dalkan iyo magaaladan ku dhashay oo ka soo jeeda iyo waftiga ballaadhan intaan leegin hortaagayn haddii aad rabtaan in hargeysa laydinla galo xor baad u tihiin codkiinna inaad maanta sheegtaan mudanayaal iyo marwooyin nimanka hadlayey waad ogtihiin mashruuca ugu ballaadhan ee gobolka ka socda waa waddada ceeldaahir ceerigaabo waddada sheerbi xingaloolna waa la dhex dhigay waa bilaabmi doontaa miyaad weligiin maqasheen qurbad joog reer haylaan iyo sanaagaba intay shireen lacag ku tabarrucay oo waddada taageeray oo dhaqaalo soo bixinaya waxaan maqlayay xalay ilaa shalay $100 baa la soo diray oo taayire lagu gubayo $100 ee la soo diraya foostada daamurkaa ay waddada u baahan tahay waa $100 ee waxa ka wanaagsan inay foosta daamura ku iibiyaan waddadu maanta waxay u taagan tahay oo ay u baahan tahay 40,000 oo foosto 40,000 oo qof oo reer haylaan iyo sanaaga ayaa min foosto bixinaya nimankaa waxaan leeyahay $100 ee aad ku bixinaysaan taayir la gubo iyo qalalaase iyo in shoobare dalka laga sameeyo amnigiisa lagu qalqalgeliyo $100 dalka ayaa u baahan waddadaa u baahan ee foosto daamura noo soo siiya mudanayaal iyo marwooyin ilaahay idankii waxaan rajaynayaa facebooka inaad ka waantoobi doontaan iyo nimanka aan sheegayay run ahaantii dhab baanu aqaan waxaan ka garanayaa 3 nin oo ka mid ah 2017 halkan markii Soomaaliland ay lahayd doorashooyin baahir gelinaynaa waxay laba ka midii magacyadooda ma raba inaan sheego laakiin waa la sheegi doonaa ururka wadani bay Minneapolis iyo Minnesota ay uga ololeynayeen oo ilaahay ugu ogyahay midna u cudboha maantana waxay leeyihiin maakhir baan sameeynaa wax la yiraahdo oo khaatimo loola goostay hargeysa baan la galaynaa waxayna u socdaan fikirkoodii ahaa hore ee Soomaalidiidka ahaa waxayna rabaan inay intay wax dhiyaataan hargeysa la goostaan waxaan runtii aan ku dardaarmaya oo ku talinaya dalkani wax qabad ayuu u baahan yahay waad ogtihiin waddadii ceeldaahir ceergaabo meel bay fiican bay maraysaa baran iyadoo go'doona 2013 22 January ayaan tagay anigoo la socda madaxweynihii hore dawladda Puntland madaxweyne Cabdiwale Maxamed Algaas oo markaa wuxuu ahaa u tartamayay musharax madaxweyne isha barameed meesha la yiraahdo buu sacabka saa ugu qaaday biyaha wuu ka cabay waxaan hadii aad guulaysto madaxweyne wuxuu u baahan yahay gobolkani waddo magaalada barin biyo u baahan tahay gobolka Sanaag iyo Highland 15 ceel biyood in gaaraysa baa laga hirgeliyay waddadii waa la soo gaarsiiyay waad ogtiin airportka barameed waa shaqeeya 30 maalmood badiyaaradda ayaa ka kacda bangiga barameed anaa joogay oo gacantayda ku furay wasaaradda maaliyadda anaa joogay oo gacantayda ku furay wuu shaqeynayaa dakhliga ka soo xirooda
ciidanka daraawiishta oo saraakiishoodii joogaan iyo hay'adaha dawladda ayaa mushaharkooda laga bixiyaa wuxuu noqday gobolada Sanaag iyo Highland gobollo isku filan oo kaalinta saddexaad ee maanta Puntland ku jira iyaga ayaa mararka qaarkood mushaharka laga soo dalbadan Nugaal Gardafuul iyo meesha la yiraahdo Mudug iyo bari laga bixiyaa oo la Sanaag baa khasnadeeda lacag ku jirtaaye mushaharka laga bixiyo gobolka heerka maraya maanta cidna ka yeeli mayno inay amnigiisa iyo nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa ay ka soo horjeedaan waxaanu kula waaninaynaa qurba joogta goboladan ka soo jeeda inta Facebook ka hadlaysaan dalkiina iyo dadkiina hal maalin soo booqda wax u tara gobolka Highland oo aan maanta joogno shacabkiisa waxaan ku boorinayaa walaalayaal dadka xumaka taliska aan sheegay aan ka hadlaynay awaasiifta ah waxba inoogu fadhiin iyagu naftooda waxba ugu fadhiin inaad aragtida guracan ee ay Facebookyada ka faafinayaan aad ka waantoodaan waagan dambena ogaada Facebook wuxuu noqday oo xarun ah meel laga xukumo magaalada Muqdisho ee Maxamar waxaan runtii ku dadaali doonaa in aragti gaara iyo fiiro gaara loo yeelan doono waajibaadka dawliga ana laga qabsan doono cid kasta oo gobolada tan iyo deegaankan u dhalatay ee reer Puntland oo isku dayda inay amniga iyo nabadgelyada iyo horumarka ay qalqalgeliyaan waxaan idin ballan qaadaynaa in horumarka socda la sii labanlaabo annaguna horumar ballaaran oo baaxad leh dawladda Puntland bay ballan qaadaysaa in gobolada ka baxdo wixii baahayaad ka hadlayseen ee gudoomiyaha gobolku ka hadlayna waxaan ka ballan qaadaynaa inaan qoraalka qaadno aanu idinka gudbino waxna laga qabto taliya qaybtu wuxuu sheegay wuxuu saldhiga dhaahar wuxuu baahan yahay lacag degdega oo $5,000 lacagta baarlamaanka Puntland ayaa qaaday annagana bixinayna annaga inta ku darsanayna waxaan ku soo koobayaa عقاشة يوضياشة ينقربوتك يماملك دقمدا يكقبولك يسابيشة أيضا كدراويشة يبوليس كبوانا خليصون دونا وحي قبلك حسيلونيس يورمركيس كوشيرانا وانوسلي دونا يسمدا عقاشة يدقن كنا والله خليصون دونا